بعد صحافة جدجين مركو هore aad baan idin salaamay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan ku soo nabad noqday wadanka muddo 2 bilood oo runta London baan ku maqnaa hawlana waan u tagay reerkuna halkaas ay degan yihiin oo iyaga naftoodana waa soo salaamay reerkaygii haddaan markaa aan ka hadlo wixii aan 2 bilood la soo kulmay waxaan la soo kulmay dad isku duuban oo lacagtii qaaraankii abaarta hadeertana kii shuban biyoodka ayay wadeen oo gacanta ku hayeen lacag aan u malaynayo 22,000 lacag ku dhowdhoobay wadeen dadkaasi dad aad u dadaalaya bay ahaayeen Kanada nafteeda waa la iga yeeray laakiin waan socdaalkii waa tagi kari waayay arrimo siyaasadeed oo halkan ka jira awgeed ayaa si degdeg ah ugu soo noqday waxaan marka hore salaanta waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo go'aankii adkaa ee uu ka qaatay qadar isaga oo ka qayb qaatay in uu wadamada walaalaha ee khaliijka sidii ay u arkeen dawladda Soomaaliland ay u aragtay go'aan fiican buu madaxweynuhu qaatay aadna waan ugu hambalyeeynaa haddaan u soo noqdo wadanka anigu 2 bilood aan maqnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin wadankii maanta waa rooban yahay laakiin dadkii wali abaartii waa la gaala dhacayaan siiba dhulkan bariga aan ka imid dhibaatooyin waaweyn baa laga soo sheegayaa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa dhul badan oo loogu ballan qaaday riig wurur baa kamida waxa kamida saaxdheer meelo fara badan oo bariga hawdka oo dawladdu ugu ballan qaaday waqtigii abaartu jirtay in riigag loo qodo waxaan ku talinayaa in riigaga sidii loogu qodi lahaa la sameeyo waayo berito waxay faa'iido u noqonayaan haddii abaar dambe inoo timaado waatan abaarihii inagu soo noqonayaan waxaan kale oo 2 kelmadood ku darsanayaa professorkii iyo Khaatumo waa joogaan waxaana leeyahay lahaa shirkii Khaatumo ayaaba halkan ka dhici doona haddaanu annagu Soomaaliland nahay ama madaxdii ka yimid bari ee Soomaaliland jooga aanu nahay ama aan kamid ahay ragga kale ee ilamida waxaan kula talinayaa inay professorka iyo ragga yimid soo dhaweeyaan oo aynan u arag si kale inaynu u arag Soomaaliland annagu markasta haddaanu Yurub joogno iyo haddaan halka joogno dadko dhan la isku wada la rabay hadeertana qoladii London ee Khaatumo raggii ugu waaweynaa waa la kulmay iyaga naftooduna waxyaabo badan oo muhiim ah oo ay ka rabaan Soomaaliland in ay shirarkan ay Soomaaliland la gelayaan ka helaan ayay iyaguna na soo fareen oo ay noo soo fareen wasiirka arrimaha gudaha ugu horeeyo marka anigu raggan siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda bari ee halkan joogay anigu aan kamid ahay waxaan kula talinayaa professorka iyo Khaatumo iyo ragga halkan jooga ha soo dhaweeyaan dadkuna inuu mid noqdaa la rabaa tafaraaruq maanta uma baahnin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu shuban biyoodka xagla toosiye waa ka salaamaya halkan shuban biyoodka wasiirku si fiican ayaa isaga iyo Muuse Biixiba ula dagaalamay gudoomiye Muuse waxaan xasuustaa in uu ilaa intii shuban biyood ku dhacay uuna nasan oo maalin kasta magaalo u taagan yahay Muusena waa ku mahadsan yahay wasiirkuna dadaal aad u badan buu sameeyay xagla toosiye isagana waa ku mahadinaynaa hawsha uu sameeyay ilaahayna dadkii hadeer waxa la yiri uu yara istaagay oo dhimashadii way yaraatay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dul qaado isagana Soomaaliland oo mida ayaanu anagu rabnaa horena u rabnay hadeertana rabnaa dadka waxaan leeyahay hawl fiican baad wadaan hadday kuwa Khaatumo halkan joogay tahay iyo kuwii hore u joogayba hawsha halka laga wado dhinacay ka baxdaa waa bakeela qaleen wabillahi tawfiiq